faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xiisad culus oo ka taagan deegaanada shidan iyo sidoo kale waqadariya, waxaana saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka oo maanta warbaahinta kula hadlay deegaanka shidan ay fariin adag oo hanjabaad ah u direen maamulka Somaliland iyo sidoo kale maleeshiyaadka uu taageeraya ee duulaanka kuwa deegaanada waqdariya iyo sidoo kale shidan. wararkii ugu dambeeyey xiisadda halkaasi ka taagan ayaan kula wadaagi doonaa. soo dhowowdaa wadaadee tahay booqashadaadii ugu horreysay Kalmay Media, nagu soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalka la ingire qaybta faallada ee commentigana aragtidaada ku dhiibo sidaad u aragto. waxgaaga iyadoo ay sii kordhaysay xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaanada waqdariya iyo sidoo kale shidan, ayaa ciidamada deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaysa oo maanta warbaahinta kula hadlay deegaanka shidan waxa ay si adag uga hadleen xiisadda ka taagan waqdariya iyo shidan iyo duulaanka dhinaca Somaliland kaga imaanaya ee maleeshiyaadka ku soo duulaya mar kasta deegaanada oo doonaya inay markaasi la wareegaan. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada hogaaminaysa oo lagu magacaabo Generaal Saciid Cusmaan oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay waqti badan markaasi u dulqaadan jireen, dulqaadna markaasi uu ka dhammaaday waqti xaadirkan duulaanka mar walba kaga imaanaya dhinaca Somaliland. mar warbaahinta la hadlayay Generaal Saciid waxa uu yiri waxaa dhammaaday waqtigii dulqaadka iyo sidoo kale samirka, waxna la joogaa waqtigii difaaca iyo sidoo kale ka hortagga duulaanada gardarrada ah ee la doonaya in dhulkeena lagu qaato. waxa uu fariin adag u diray maleeshiyaadka dhinaca Somaliland ka soo jeeda iyo ciidamada maamulkaasi ee taageerada siinaya, waxaana Generaal Saciid uu yiri haddii aad markaasi isku soo sawirtaan geedaha cadayga, macnaheedu ma ahaan in aad si buuxda ula wareegteen deegaanada waqdariya iyo shidan. ka ilaaliya nabadoonnadiina iyo sidoo kale waxgaradkiina inaad ku soo sawirtaan geedaha caday, kuweenna innaga ayaa ka soo horrayna ayuu yidhi, waxaana diyaar u nahay in aan sharafkooda iyo sidoo kale karaamadooda difaacno, dhulkoodana markaasi ama dhulkeenna aan ka hortagno ayuu yidhi cadowga isku dayay inuu qaato. haddii aad joogi weysaan oo aad waddaan duulaanka waxa uu yidhi waxaan qaadan doonnaa go'aanka madambaysa oo aan markaasi ku go'aansanayno in meesha lagu gorgortamayo ay noqoto ayuu yidhi guryihiinna iyo sidoo kale dhulka aad sheeganaysaan wakhtigan ee aad degan tihiida. hadalka Generaal Saciid oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada difaaca deegaanka ee ku sugan shidan iyo waqdariya ayaa waxa uu imaanayaa xilli la soo warinayo in dhaqdhaqaaqyo culus iyo sidoo kale xiisad ay ka taagan tahay deegaanada shidan, waqdariya, yube iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada oo ay wadaan ciidamada maamulka Somaliland, maleeshiyaadka ay taageerayaan iyo sidoo kale ciidamada difaaca deegaanka oo heegankii ugu sarreeya ku jira. dhinaca Somaliland ayaa ilaa hadda markaasi aan wax jawaaba ka bixinin hadalka digniinta ah ee ka soo baxay saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka ee waqdariya iyo sidoo kale shidan ku sugan, kuwaas oo si adag markaasi ula hadlay maamulka Somaliland iyo maleeshiyaadka ay taageerayaan ee duulaanka ku ah deegaanadooda. xiisadda labada dhinac ayaa u muuqatay in marba marka ka dambaysa ee cirka isku sii shareeraysa, iyada oo ciidamada difaaca deegaanada waqdariya iyo shidan ay markan u muuqdaan inay si buuxda ugu diyaar garoobeen dagaal waqti dheer qaata oo ay la galaan ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyaadka ay taageerayaan ee doonaya in dhulkooda ay la wareegaan. Somaliland waxay dadaal kasta ku bixinaysaa dhankeeda sidii ay xoog iyo xeeladba ugula wareegi lahayd deegaanada waqdariya iyo sidoo kale shidan, kuwaas oo ah deegaano istiraatiiji ah isla markaana waqti xaadirkan ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka ee beesha markaasi warsangeli oo iyagu markaasi u muuqda inay diyaar u yihiin in ay dhulkooda difaacdaan, maadaama Somaliland ay waqti badan markaasi ku taamaysay in ay la wareegto deegaanada oo ka tirsan maamulka markaasi Puntland, isla markaana ay sheegato maamulka Somaliland oo iyadu markaasi u aragto in deegaanada ay yihiin kuwo markaasi iyadu ay maamusho. Somaliland waxay muddooyinkii ama maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo xooggan oo ay ku doonayso in deegaanadan ay kula wareegto, laakiin dhammaan iskudayadaas ayaa Somaliland ka fashilmay kadib dagaal maalin ka hor halkaasi ka dhacay oo ahaa duulaan ciidamada Somaliland iyo maleeshiyaadkii ay taageerayeen ay ku qaadeen deegaanadaasi, jab xoogganna lagu soo gaarsiiyey. iyada oo Somaliland markaasi lagu jibiyey dagaalkii maalin ka hor halkaasi ka dhacay ciidamada maamulkaasi maleeshiyaadkii ay taageerayeen, mar kale Somaliland waxa ay dadaal xooggan ku bixinaysaa sidii ay deegaanadaasi gacanteeda u soo gali lahaayeen. waxa Somaliland ugu weyn ee ay markaasi ka doonayso deegaanadan ayaana ah inay markaasi iyadu ka faa'iidaysato kheyraadka dabiiciga ah
ee deegaanadaasi ku jira sida macdanta, dahabka iyo sidoo kale gaaska, oo deegaanadaasi ay markaasi ku yihiin kuwo caan ah oo aan markaasi jirin deegaano kale oo la mid ah marka la fiiriyo macdanta iyo dahabka deegaanadaasi ku jira. Dadka deegaanka ayaa hadda u muuqda inay fahmeen xaqiiqada dhabta ah iyo sidoo kale doonista Somalilan iyo waxa deegaanadan ay ka rabto, waxayna ogaadeen ugu dambayn in Somalilan waxa keliya ay doonayso ee dhiigga badan ee u daadinayso shacabka deegaanadaasina ay u dhibaateynayso ay tahay in ay gacanta ku dhigto maamulka iyo sidoo kale ka faa'iidaysiga khayraadka kala duwan ee deegaanadaasi ku jira. Waxaana dadka deegaanka ay go'aansadeen in tab kasta iyo sidoo kale xeelad kasta oo ay kaga hortegi karaan damaca Somalilan ay kaga hortagaan, iyaga oo hadda xooggooda isugu geeyey sidii ay awood militari ugu difaaci lahaayeen deegaanadani. Dhaqdhaqaaqyo culus ayaa laga dareemayaa magaalada Cerigabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Somalilan, waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqyadaasi in la diyaarinayo ciidamo kala duwan oo isugu jira kuwa maleeshiyaada iyo sidoo kale kuwa maamulka Somalilan oo laga kala keenay magaalooyinka maamulka Somalilan si ay duulaan u qaadaan waqdariyo shidan iyo Yube oo ah meelaha ugu muhiimsan gobolka Sanaag ee wakhtigan la isku hayo, isla markaana dirirtu xooggan ay ka taagan tahay. Deegaanada waqdariyeed iyo shida oo dagaaladu ay ka taagan yihiin xiisadooduna weli aysan markaasi dhammaanin ayaa waxaa markaasi maamul ahaan ay hoos tagaan maamulka Puntland, maadaama waqdariyo shidan iyo sidoo kale Yubaba ay hoos tagaan degmada Laasqoray ee maamulka Puntland uu gacanta ku hayo. Puntland ayaan muddadii dagaalada ay ka socdeen deegaanadani aan ilaa hadda markaasi ka hadlin, taasoo lagu tilmaamay Puntland uu ka gaabiyey difaaca deegaanada uu isagu sheegto, walow ay jiraan siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaanadan oo markaasi iyagu ka tirsan maamulka Puntland ama kuwa markaasi aan xil haynin laakiin siyaasad ahaan raacsan maamulka Puntland. Marka la fiiriyo maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa ilaa hadda ka hadlay dagaalada ka soconaya waqdariyo iyo shida, waxaana uu tilmaamay in uu yahay dagaalka halkaasi ka soconaya weerar gardarra oo lagu qaaday dadka deegaanka. Maamulka Somalilanna uu ku bannaystay dhiigga dadka shacabka ah in uu markaasi ku daadiyo deegaanadaasi si uu u qaato deegaanadaasi iyo khayraadka ku jira. Dadka deegaanka ayaa u muuqda markan inay si buuxda isugu tashteen oo aysan markaa sugaynin taageero kaga timaada dhinaca maamulka Puntland ama waqooyi bari Soomaaliya, waxaana dadka deegaanka ay go'aansadeen in iyaga markaasi ay isku tashtaan dhulkoodana si isku tashi ah ay ku difaacdaan. Waxaa la filayaa xiisaddan haddii ay sii taagnaato dagaaladana ay ballaartaan in ugu dambayn ay gaari doonaan dagaalada ka soconaya waqdariyo iyo shida magaalada Cerigabo oo ah halka markaasi ugu muhiimsan ay la isku hayo, isla markaana mid kasta oo ka mid ah dhinacyada halkaasi ku loolamay uu doonayo in gacantiisa ay ku jirto magaalada Cerigabo. Maamulka Somalilan waxa uu doonayaa in Cerigabo aysan gacantiisa marnaba ka bixin, halka dadka deegaankana ay doonayaan in Cerigabo ay gacanta ku dhigaan oo gacantooda soo gasho, Somalilanna ay ka saaraan si guud ahaan gobolka Sanaag uu u noqdo mid gacab ka maqan gacanta maamulka Somalilan. Guud ahaan xiisaddan wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. Muuqaalkan like saar, qaybta faallada ee commentigana aragtidaada ku dhibo sidaad u aragto. Yaa ku guulaysan doona dagaalka? Ciidamada difaaca deegaanka ayaa dhulkooda difaacan doona oo ka guulaysan doona kuwa duulaanka ah ee maamulka Somalilan, mise Somalilan ayaa deegaanadan la wareegi doonta? Qaybta faallada ku dhiba aragtidaada, nagu soo bir haddii aad horey noola joogin oo calaamadda subscribe-ka noo taabo, muuqaalkana like garee.